lacag ba ka samayn kartaa social media. Asxaabteeda inta ugu badan waxay maalmihii ugu dambeeyay weydiinayeen sida Facebook lacag looga sameeyo iyo xayisiinta Facebook sida ay noqon karto. Waxaan maanta ka hadli doonaa lacagaha laga sameeyo social media, gaar ahaan Facebook, sida ay yihiin iyo waxyaabaha ka saacidi kara in social media lacag ka sameyso. Lacagta waxaa ka horeeyo waxyaabo badan oo la rabo inaad sameysid. Marka intaad sameysid kadib waxaa kuu suurtagelaysa in aad Facebook ama social media intiisa kale ha noqoto YouTube, Instagram, TikTok aad lacag ka sameyso. Waxa ugu horeeya oo laga rabo waxa ay tahay waa inaad doorataa niche ama wax khaas ku ah adiga oo lagu barto. Waxaa jiro dad ka hadlo cunto karinta, ayaga ay khaas u tahay, waa lagu yaqaanaa. Dadka follow gareyn doona ama dadka ku xirmi doonana waa dad ka hela arrintaasi. Dadaa waxay ka hadlaan sida wax loo barto online-ka, sida wax looga barto koorsooyinka online-ka iyo waxa la xiriira online-ka, barashada online-ka. Qofba mowduuc ayuu ka hadlaa. Adiga mar isla fariiso, nafsadaada qiimeey, waxyaabaha ku fiican tahay aad dhihi kartid waa ka hadli kartaa, ka hadal. Arrinta labaad ee ugu muhiimsan waxa ay tahay muuqaalo engaging ah oo engaging content, muuqaalo ee dadka la falgeli karaan. Muuqaal sida aad rabto uun ha u sameynin, laakiin u sameey dadka kugu xiran sida ay u rabaan. Maxaan ka wada arrintaasi? Tusaale kale waxaa ka hadashaa arrimaha tusaale kale cunto karinta kale. Adigoo cuntada ka hadlaayo ama ka hadlaayo sida cunto loo kariyo kale ama cunto khaas ka sheekeynayo, waxyaabo kale oo micno daraha soo gelinin, wixii aad kugu soo dhaco ha ka hadlin, wixii ay rabaan oo ay kugu barteen dadka ka hadal. Nafsadaadana qiime u yeelayo, diintaadana aan halis gelinaynin, dhaqankaadana aan ku ciyaaraynin. Engaging content oo dadka ay la falgeli karaan oo ay ka heli karaan. Waa inaad value ama qiimo ah ku dartaa muuqaaladaada si dadka ay kula joogaan. Dadka aad ay u badan yihiin, muuqaalada aad ay u badan yihiin, feedka ama for you qaybta ugu horeysa muuqaalo tiro badan ayaa soo galaya. Waa inuu kaaga noqdaa mid qofkaasi ku sababi kara inuusan ka soconin oo muuqaalka ku xiga uusan raadinin. Waa inaad baahi u abuurtaa, waa inaad qiimo u dareensiisaa inuu meeshan halkan uga baahan yahay. Kulli qof walba qaab gooni uu sameeyaa si uu muuqaaladiisa qiimo ugu yeelo ama engaging uu ka dhigo. Qiimeey sida ugu fiican ee ku shaqeyso qaab kala duwan, tijaabi qaabka kugu shaqeyso oo aad dhihi kartid qaabkan ayaa kugu wacan, sidaasi samee. haddii suurtagal noqotona waxaan ka soo hadli doonaa ama mowduuc ka samayn doonaa sidee loo sameeyaa muuqaalo engaging ama muuqaalo dadka la falgeli kara sidee loo sameeyaa. Waxaan ka soo samayn doonaa muuqaal gooni ah haddii Ilaahay raali ka noqdo. Arrinta saddexaad oo muhiim ah inaad social media hadda lacag samaysid aragtid waxay tahay inaad dhisid audience, build audience ama dhis dad kula socda. Tusaalaan sidee u dhisi kartaa? Waxyaabo waxaa jiraan kaa saacidi kara in dad ay kugu soo xirmaan. Muuqaalkaaga waa la daawan karaa, laakiin waxaa laga yaabaa in muuqaalkaas aan lagu soo xirmin oo dad aan kala soconin. Tusaale kale waxyaabo yar waxaa ku darsan kartaa muuqaalkaaga. Muuqaalkan like star, share garee, follow soo dheh oo kale. Tusaale ahaan muuqaalkan hadda like haddaa saartid waxaa laga yaabaa in algoritmka uu qaado oo dad kale u tuso audience sidaas aan ku helo. Muuqaalka haddaa share gareyso waxaa laga yaabaa asxaabtaada inay arkaan ay ka helaan mowduucan ka hadlaayo oo rabaan inay ayaga laftooda lacag social media ka sameeyaan ay ka faa'iideystaan ay bilaabaan. Hasaas oo kale marka dadka si aad u dhisto dad waa inaad dadka la hadashid, aad ka codsatid. Ceebna ma ahan qofka like muuqaalka isaar inaad dhahdid, sababtoo ah muuqaalka inuu kuu qarxo ama dad badan ay ka faa'iideystaan aad u sameysay contentiga at the same time inaad wax ka heshana u sameysay. Labada hadaf way ka saacidaysaa in dad badan kugu xirmaan. Marka dadka ka codso muuqaalkan like inay saaraan sidoo kale share ay dhahaan, like la siiyo, like dadka ku siinayaan dareensii in wax value ama qiimo ay heli doonaan haddii like ku siiyaan ama kula falgalaan. Tusaale waa qodobka saddexaad, waa inaad dad dhisto. Dad bini aadan waxa ugu qiimaha badan waa bini aadan, waa inaad dad dhistaa. Shayga ugu muhiimsan marka ugu dambeeya waxaa waaye dad waa sameysay, content waa abuurtay, mowduuc waa dooratay. Waa inaad muuqaaladaada monetize gareysaa ama monetization ama inaa xayeysiin saartaa. Marka dadaa waxaa laga yaabaa saddexda qodobadii hore inay ilaabaan. Mar walba waxaa qofku ku weydiinaa lacagta sidee ugu xiraa, akoonka sidee ugu xiraa, wadankay joogtaa, wadankay ku xiratay. Su'aalahaas tiro badan dadka yaa la weydiinin. Waxaa weydiisaa dadka mowduuc sidee u dooran karaa, ma iga saacidi kartaa? Muuqaal sidee u samayn karaa, sidee u dhidgareyn karaa? Haddaad taqaanid alxamdulillah, waa sidee muuqaalkayga dad u gaarsiin karaa? Waa inaa waxyaabaha basiga soo dhistaa. Hadafkaada ugu horeeya ha ka dhigin inaad lacag hesho.
aniga Facebook page-kan 2017 furtay markaan furanayo kuma fikirin page-kan ayaa xayeysiin saaranaysa ama lacag aad ka samaynaysaa laakiin waxaan jeclaan kusoo bandhigi jiray waxaan rabaa kusoo bandhigi jiray fikradeyda ayaan halkan idinkula wadaagi jiray waxaan halkan ugu mahad celinaa asxaabtii xilligaas igu soo biirto ilaa hadda ila socoto runtii sharaf ayaad leedihiin aad ayaan idinkaga mahad celinaa waxaa sidoo kale u mahad celinaa asxaabtii gadaal iga timid oo gadaal igaga soo biirtay idinka lafsiina sharaf ayaad leedihiin mahad ballaaran ayaa idin jeedinaya marka waxaan muuqaalka uga baxayaa hal talo oo muhiim ah social media lacag waa ka samayn kartaa laakiin tilaabta ugu horeyso ha ka dhigin sidee lacag u helaa waxaanan intaa samaynaysid waxaa buuxinaysaa shuruudihii lacagaha lagu heli lahaa tusaale hal tusaale ku siinaa marka engagementigaaga ama dadka kugu soo xirmaya ka shaqaysid waxaa buuxinaysaa shuruud oo ka mid ah shuruudaha inaad lacag heshid Facebook page ama YouTube-ka kale inaad muuqaalo engaging content aa hesho aa ka shaqaysid mowduuc raadsid si fiican u samaysid waxaa buuxinaysaa shuruud ka mid ah shuruudaha lacagta lagu sameeyo ah inaad views fiican heshid marka way isku xiran tahay wayna kala horeysaa sidai u kala horeyso aan sameyno kaa codsanaa marka waa aniga xilligayga la yimid inaad muuqaalka like saartid asxaabta la wadaagtid commentina ka bixisid si dad badan uga faa'iidaystaan wax uuna uga helaan faa'iido ah muuqaalkan waa mahadsantihiin